waxaan kaloo tilmaamayaa qoraalka Soomaaliga min af-Soomaaligii la barto oo dhalinyaradu waliba ku dadaalaan dadka aad la hadlaysaa waa Soomaali afka ay yaqaaniin waa afka Soomaali af Soomaali saxan sidii loogu hadli lahaa ay fahmayaan waa la isku dayaa qoraalka Soomaaligana si fiican waa in loo bartaa afkii Soomaaliga hadii laga buuxiyo Carabi iyo dadka Ingiriisiga yaqaanana Ingiriisiga ay ku taraxaan oo ka buuxiyaan dad fara badan fahmi maayaan qofku wuxuu sheegay markuu intaas oo kelmadood garan waayana waxa laga yaabaa inuu ka biyadiido Soomaaliga dadka laxninaya ama jajabinaya ama yaani af Soomaali qarbaboosha qoraya dadka wax akhriya af Soomaaliga yaqaana waa ka biyadiidayaan wixii akhrin ma xalli sheegay dadka lunsan mid kamida af Soomaaligana de waxa weeyaan sheegto ku qaraabta kamida ayaa maqaal qorayba inaan ba radiyay baa oo u jawaabay dadna wuxuu u arkay wuxuu qoray inaan marka ahayn wax saxan wuxuu ugu jawaabay maxaan kala hadlaa waxa sad qoraysaa maxaan kala hadlaa waxa sad qoraysaa horta marka hore af Soomaaliga soo baro af Soomaaliga in qoraalkiisa la barto af Soomaali saxan lagu hadlo bugaagta Soomaaliga la akhriyo ee qawaacida Soomaaliga ka hadlaysa tilmaamaha yaani marka loo yeelayo calaamatu tarqiim waxa Carabiga lagu yiraahdo tilmaamaha afka Soomaaliga waxa laga qoray la akhristo naxwaha Soomaaliga la akhristo yaani hab qoraal fiican si wax loo qori lahaa dhalinyarada bugaag Soomaaliga ka hadasho qawaacadiisa akeeri kartaa yani waxa weeye tilmaamaha iyo يعني marka loo yeelo afka Soomaaliga iyadana diraaseeyo barta aqoonsada isku dayasa u qori lahaydeen af Soomaali wanaagsan hufan erayada marka afafka kala ah ee aan afka Soomaaliga ku biirin oo dadku si caam ah ayna u garanayn waa in laga guraa oo la Soomaaliyeeyaa erayada Soomaaliyoobay oo dadku si caam ah ay u garanayaan iyadoo mushkil ma leh laakiin tabaqaadka dadka qaybaha dadka ee kala duwan ama leebelada ay kala joogan hadii qaar garanayaan laakiin kuwa kale aynay garanayn saxdu waxay tahay in laga saaro oo siday u garanayaan loogu sheego waxaana loo baahan yahay baraha bulshada in lagu ciriiriyo dadka waxa weeye marka afkaarta qaldan faafinaya qoraalka la qoraayo dad fara badan baa akhrinaya hadii cid marka waxa weeye sida wanaagsan wax u qorayso oo yaani marka sharciga waafaqaysa u doodaa aynay qoraaladaas gelin waxay noqonaysaa in dadka cidla ka helaan waxay ku koobnaanayaan kaliya masjid gudihii markaas qoraaladii meel walba laga ridayaa oo meediyaha meel walba laga ridayaa oo baraha bulshada wixii la doono lagu faafinayaa waxa loo baahan yahay yaani khalqiga badan ee tirada badan la sidii loo sixi lahaa waxna loo gaarsiin lahaa baa loo baahan yahay marka afka Soomaaliga iyo qoraalkiisa si fiican u barta baraha bulshadana dabeed marka waxa weeye dhex gala dadka marka waxa weeye shubahaadka ka jawaabi kara cid walba ma aha qofka hadaanu aqoon ku jawaabo lahayn xamaasad kaliya inuu ku jawaabo ma fiicna waayo haddii aynkaasi dhacdo kana mimma yufsid akthar mimma yuslih wuxuu kharibaya ka badnaanayo wuxuu hagaajinaya in wax la islaaxiyo khayrka la badiyo oo wanaaga la badiyo la doonaya laakiin sharki in la ziyaadiyo lama rabo radul baatil bil baatil baatilki in baatil lagu radiyo lama rabo ama baatilkii xaq iyo baatil isku jira in lagu radiyo lama rabo waxa baatilka loogu jawaabayo loogu jawaab celinaya waa inay noqotaa xaq saafi ah xaq baraxla laakiin haday noqoto baatilkii baa baatil loogu jawaabaya waxay noqonaysaa waxa weeye inaan waxba la kordhin haddii xaq iyo baatil isku jira loogu jawaabana oo isku barxan markaana waxay noqonaysaa xaqun wa fihi dakhan wa xaqi ku jiro marka waxa loo baahan yahay cidda aqoonta leh ee shubahaadka ka jawaabi karta waa inay noqoto cidda ka jawaabaysa cid walba inay noqon taasna waxa weeye waa in lagu dadaalaa sidii waxa weeye marka bal qoraalka Soomaaliga loo qori lahaa loo baran lahaa cidda aqoonta u leeyahay waxa weeye ay marka maqaaticda iyo marka waxa weeye hadallada ay u qori lahaayeen yaani dadka anfacaya ee wax u taraya oo hagaajinaya oo islaaxinaya